السلام عليكم كلنتي waxaan oo wanaagsan muuqaalkan kooban waxaan ka hadli doonaa afar hab oo loo xaliyo marka qofka ay bararaan ama waxa loo yaqaano tonsillitis xoqadaha hadda sidii marka aad u fahmaysid waxyaalaha la soo jeedo waxa kamid ah qofka inuu qaato nasashada qofka waxay ka caawinaysaa in jirkiisa awood u yeesho marka sare loo qaado habka difaaca marka loo xaliyo dhibaatada marka qofku waxyaalaha kale la soo jeedo waxa kamid ah inuu qofku cabo biyo marka qabow si marka qofka ay u soo hesho ama u fududeyso inuu ka dareemo nafisad ama in xanuunka marka qofka dareemayo xoqadaha muqamanka ay yaraysto marka qofka uu liqo cabitaankiisa oo kale biyihii qodobka saddexaad la soo jeedo waxa weeyaan qofku inuu marka ku luqluqdo biyo marka cusbo lagu daro ama milix si markaana diiran si marka loo yareeyo bararka ama sidoo kale inflammation marka qofku uu dareemayo ugu dambeyntii qodobka afraad la soo jeedo waxa weeyaan qofku inuu qaato ama isticmaalo dawooyinka lagula dagaallamo ama hoos lagu dhigo xanuunka marka qofku ka dareemayo qumanka maadaama ay xajmigoodu marka uu kordhaa marka uu bararay waxa kale la soo jeediyay qofku inuu qaato dawada loo yaqaano paracetamol sida sheegnay iyo sidoo kale dawooyin kale ee loo yaqaano ibuprofen iyo marka kuwa la midka waxaa qofku lagula talinayaa inuu qaadan dawada loo yaqaano aspirin tani kula dambe nabadgelyo.